والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أيان ما أنت تاريخ وين أنا سجارة يقول هاي دولة الصومالية يدول جولات كجل مدوق نوجود هاي إن أنا هل كان سون ماذا أنا جو كتشنا إنه شن يتوان سنة أو ظروف أدق يعني من دولي أو أمد يدلك هايستي إن أنا دلك إنك صارنو meelo badanna ka saarnay inta dhiman inaan dhameystirnana maxaa taladeedii aan isugu nimiday waa idinkaga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran waan ka mahad celinayaa kalsoonida oo qalbi maxaa ahay nagida ay itusayso cududan meesha taagan maxaan ku yiraahday xoogga iyo awoodda badan la taagan maanta na tusaysa sida ay horeyna shabaab iyo khawaarijta ugu galeen maantana inay ugu galaan ay diyaar yihiin haday ahaayeen kuwa inta inay ka gudma deegaano kale oo Soomaaliyeed dhibaateeye rabay mar hore iyo haday yihiin kuwa hadda magaaladan wasiil muhiimad gaar ay leedahay laana shabaabku khawaarijtu haday halkan inta qabsadaan wasiil ay ku guuleystaan hobyana waa ku guuleysan lahaayeen laana hobyo meel go'doon oo gooni u go'anay noqon lahayd in magaaladan marka laga eriyay oo lagu laayay oo laga difaacay waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u weyn ayay lahayd guusheeduna guul aad iyo aad u weyn ayay ahayd awoodda halkan ka muuqata ee hortaala iyo mid gadaashiina maxaan ku raadayay taaganba waa sidii maxaa xildhibaan Sabulursho u sheegayo hagaro hadaanay jirin xaradheer shabaab joogeen maanta marka waxaan leenahay horta calaamada guusha ugu horeyso waa xaradheere iyo inta ka sokayso oo maxaan ku raadayay raafka la sii mariyo waxa intaas hartay waa laga dhawaajiyay ayadana aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan iyo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada isla jira iyo mid galmudug gaar ahaan wax ay heli karaan ama ay soo haaba karaan oo la idinka hakranayo ama dib loola dhacayo ma jiraan laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dawladdiinu tabarteedu waa yartahay waxa tabarteeda yareeyayna waa nimankaas khawaarijta waay dawlad weyn oo dawladaha Afrika jiro ugu magac weyn ugu awood badan aan taariikhda ahaan jirnay waa la ogyahay maantana mid ugu daciifsanaanahay oo hadii maxaa cadow qabsaday cadowga hanalaga kiciya leh oo hadii dadkoodii gaajooday wargaajada dadkii naga leenane maxaa raashin aan loo siiya lahaanahay waxa soo dhan maxaa ugu wacan nimankaas dulliga ugu wacan beer in la tacbado waa diideen xoolo in la dhaqdo waa diideen in la ganacsado waa diideen dadku inay karaamo yeeshaan oo qabkooda oo kor madaxooda kor u taagnaado waa diideen hanoolaan inay nagu hayaan nimankaas hanoolaan ma noolidiin annaguna waa noolnahay dhowayna waa noolnahaydeena inaan ka dhabaynaa rabnaa dadka deegaankan degan sidii horeyba loo tilmaamay dad Soomaalida dhexdeeda ka tilmaaman hadii halgankii berigi gobonimada lagu qaadanay ay tahay iyo hadii kii daba oo maxaan ku raadayay dawladdeena markay qalloocatay la isaga dhicinayay hadii ay tahay iyo midka maanta oo loo taagan yahay oo loo joogo khawaarijta la isaga kaxaynay haday tahay intaba taariikhaad ku leedihiin laakiin inta nimankii shabaab ay firq leeyihiin oo ay deegaanadii maxaan ku raadayay galmudug qaybo badan oo ka tirsan ay wali ay ku amar taagleynayaan oo ay Soomaaliya inteeda kale ku amar taagleynayaan guushiinu waa waxba ka dhiman shabaab waa geedkan maxaan ku raadayay la yiraahdo geed jinniga la yiraahdo kala waay geedkaasi meeshu ka baxo neef ki daaqo oo inta ka baxa ee xagga saadadiisa dhigaahay meeshu ka soo baxaya meeshaasi si aanu geed uga soo bixin neef geed jinniga soo daaqo inaanu tagin wax kale iska daay shabaab si aan uga badbaadnaahay haday meelba ay jiraan ay ka soo faafi karaan bari maanta haday carar xataa bari way imaanayaan geed jinnigana hadii geed la gooyo xataa ma baabao ilaa jiridiis inta la qodo banaanka la soo dhigo maxaan ku raadayay lagu shubo maxaa olyo dab la qabadsiyo ka bacdi jiridiis dhimataa
nimankaasi inaan jirida siibnay oo aan u baahannahay meel walba waa ka soo iri waa ku celinayaa wiilasha jiray wiilal Soomaaliyeed u badeen kuwa kharijiinta oo banaan ka yimiday oo ajnabiga waxba nalama leh dalna nalama leh muxadadna nalama leh waxayna la leeyihiin mala oo naga dhaxeeya malaha waa ajnabi ma qalaha option kale iyo xuduud kale malaha in dalka Soomaaliya ka baxaan waay bas kuwa Soomaalida ee wiilasheennii hore ah inta oo fikirka shabaab oo aaminsan yahay oo ra'yigaasi qabo wiilasheena ma aha qaraabo maahin ehel maahin wax naga dhaxeeya ma leh kan waa kaan abtiga u ahay kan waa kaan adeerka u ahay kan waa kaan muxuu ahaa habaryarta u ahaa kan waa taan eedada u ah ma jirto waxba isuma nihin waanad ogtihiin in ilmo shabaaba oo waalidkood laayay waa ogtihiin waalidkood dilay qarxiyay waalidkood uu ka qaxay oo ka cararo lafiis wala baxso ogtihiin ninkii hooyadii dhashay aabay dhalay adeerkiis iyo maxaan ku raabay abtigiis aan dhowreyn masnool gogosha lama soo gashada waa masnool iska ilaaliya qaraabanimo ma halka si oo shabaab ku jiraan waxay ahayd qaraabo male ayagu qaraabo male fikirka ay qaloocan ay aaminsan yihiin ay walaal ku yihiin laakiin annaga wali qaraabaan leenahay intan qaraabo shabaab aan qaraabanimo aan u leenahay wali waan uga adkaan inaan ka adkaan war nimanka qaraabo maahin waa cadow annaga cadow noo yihiin ilaahayna cadow ay u yihiin bini aadamka nool oo san ku neeflaha oo dhanna cadow ay u yihiin iska dhicinay leeyihiin waana iska dhiciseen waana iska dhici karnaa waana ka adagnaa waana aragteen waxaan rabnaa aan iskaashanno aan isu gurmadno xuduudaha qabiilka aan dhaafno aan soconno aad iyo aad ayaan ugu farxay maanta maxaas mugaan tagay dad kala reera oo deegaano kala duwan ka yimiday oo deegaanadoodu markay soo xureeyeen deegaanadan kale inay sii xureeyaan hore u sii socdaan muxuu ahaa u yimid ayaan ku soo arkay wax aad iyo aad loogu farxo oo macno la waay Soomaaliya maanta waa ku celcelinayaa hal cadow ay leedahay hal mid labaad male mid la necib yahay male hal cadow ay leedahay waa shabaab waa khawaarijta maanta dalka iyo dadka haysata cadow ah cadow kale Soomaali reerka isdirsanaa jirteen muxuu cadow ma kuwa kale oo maxaan ku raad taariikh hor isdir cadow ma kuwa deegaan kala degan cadow ma maxay ahayd ninkii odaga abwaanka gabi muxuu yiri iska kaydil duul kala iga ka daranay maanta hadii qabiil kale inta soo guuduula xataa oo deegaanka yimaado ani waxaan qabaa inaan xabad lagu ridin duul nooga daranaa joog qabiilka soo duul xeeraan leenahay dhaqanaan leenahay ama waa un iska aarsanaa ama waa ka dhaqanaa nimankan dhaqanna ma lihin xeerna ma lihin wax naga dhaxayana male marka waxaan rabaa awoodeena oo dhan iyo xuduudeena oo dhan inaan u jeedino nimanka khawaarijta ah khawaarij macnaheedu waa maxay kharij aan diin diintay banaanka ka taagan yihiin laana waxay sameynayaan diintu meel kuma laha diinta meel kuma laha maadaama aan diinta meel ku saasayna soo aajireen wiligood waa jireen xadiiska rasuulku muxuu ahay wax ka muxuu ahay ahadiis wax ka aayada akhris badan oo ka xadiis daliisha ama ka badan ma jiraan yaana lagu kadsoomin nimanka diinkeen nooga cayaareen waa qalluuciyeen diinteenuna diin lagu cayaari kara la qalluuceen nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun ilaahay ayiri diinkan ilaahay ilaashaday laakiin annagu ugu ilaalina ilaahay annaga waaya dadkii u adeegay oo ilaalinay markaan ilaali weynay muddooyinkii la soo dhaafay ayaa inta khawaarijta ka soo gasho inta wax uga darsato oo xagga kutub yaro 4 page ay meesha ka la soo baxday oo maxaan ku inta waa ilaalinaynaa maanta laga bilaabay wixii ka dambeeyo dhan diinta u ogolaameen muslimiin 100% muslimiin ah sunniyiin ah maxaan ku yiraahdaa shaafiiciyiin ah ahlu sunna wal jamaa ah yeeli mayno in inta yimaado walax baasoon la garanaynin iyo walax meel kale laga soo minguuri diinta inuu dhinac ka soo geliyo laga yeeli maayo karaamaan leenahay qabaan leenahay dad jiraan nahay waa ka tilmaamanahay adduunyada meesha aan naalno meesha karaamo lagu lahaalahay ma ahan meeshii dad macna la ay joogi lahaayeen ma aha meeshii magac iyo macna lagu yeelan lahay ma aha
annaga Soomaaliana geysan nimankaas noo geystay annaga waxaan isugu geysanay inaan nimanka iska qaban weyna maanta aan joognaa waa fahmay waa iska qabanaynaa waa iskaashanaynaa yaan lagu fiirsanin reer iyo degaan shabaab weerariyo ama haysto hadii la arko yaan lagu fiirsanin shabaab annaga aragti anaga dhacayso ama reer hebel iyo qurac dheer meel leeyahay qurac madow aad joogo ama annaga soo aad intiina soo aadawad hadda mid kale maanta awoodda meeshan ka muuqataay ma aqaan aniga shabaab intaan haysto meel uu joogo ma garanayo jamhuuriyadda hadday isku keenaan xataa kooda muxuu ahay jira muxuu ahay meeshii ahayd caasimadda ahayd maxay ahayd jilibkooda jira iyo kooda maxaa xaradheero jooga inta ka dhaxaysa hadii la isku keeno u malayn maayo awoodooda inay intaan la eg tahay qalabna intaan inay haystaan ilmihii maskaxda ka qaldeen bas caqligeena iyo maskaxdeena aan toosino aan diinta saxda ku toosino dadnimadu waxa ay nafarayso leenahay aan ku toosino dadnimada yaraanta horaan u soo diidi jirnay aan diidno horeyaan u socono guul iyo khayr aan rajaynina wiilasha Soomaha garaado iyo karaamo iyo sharaf iyo nolol fiican oo dhan inuu shabaab ay naga xigtaa haddaan kulligan wada janano noqono yaa askarna oo amrayna horeeyaa loogu soo tacadiyay arrintaas ku tacadimayno laakiin garaadana waa mudantiin biladana waa mudantiin waana helaysaa insha Allah diyaaliira way imaanaysaa anaa ballan qaadayo in maalin maalmaha kamida deegaankan inta nimaado dad bilad geesi ana loo xiro kuwana darajo zaa'id la dalacsiyo ay qaataan anaa ballan qaadayo taas ilaahay idinkiis degdegsiiyayna gelina nimanka aan iska qabanno yaana wax kale adduunyo kale iyo damac adduunyo kale darajada xagee lagu sidan title hadii la hel xagee lagu qaadan ana madaxweynaha jamhuuriyadda waata sahel helicopteradaas saaranahay hadee aan muxuu ahay aan isxoreyno ballanta maanta aniga aan kaga tagaayo waxay tahay kulanka ku xigoon isku imaanayno xaradheer isugu imaanayna wisil isugu imaanayna xaradheer isugu imaanayna idinka kaligiina ma dad badan muxuu ahay isugu imaan doona hadii la yiraahdo garabkiina Allah galo mar kale aad iyo aad u maasantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh